ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ودرسيني لبعض سيرة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم waxaan soo marnay fawaa'idda siiradu ay leedahay iyo waxa laga faa'iideysanayo qofka siiradiisa aan ka sheekaynayna waa nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dariiqiisii iyo dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii buu darsigu ku saabsan yahay sida awadeed qofka muslimka ah ee dhageysanaya ajir buu ka helayaa إن شاء الله قفك آخرنا يانا إلهي وحان uga rajaynaynaa sidoo kale inuu ajir ka siiyo waxaan soo marnay sheekha kitaabka alifay muqaddamadiisii kitaabkan ee sheekh asuusi lagu magacaabo iyo sababta uu siiradan u soo gaabiyay oo ah inaan baranno nabiga sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siiradiisii inaan si fiican u fahamno taasoo culimadu ay yiraahdeen culimada qaarkood ibn al-arabi iyo qaar culimada kamida siirada rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka mukallafka ah qaar ba kaga waajiba inuu barto intii culimadu ay tilmaameen markaa in rasuulka laga barto ayaan soo koobay buu sheekhan yiri taana waxa iga dalbay dad baa waxay i weydiiyeen inaan sidaa u sameeyo dad doonaya siiradii rasuulka inay bartaan iyo dariiqiisii baa iga codsaday inaan u soo gaabiyo sidaasaan sameeyey buu yidhi waxaanan ku bilaabay buu yidhi sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam nasabka rasuulka sallallahu alayhi wasallam nasabkiisa nasabuhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam rasuulka abtirkiisii weeyaan huwa rasuulku muhammad ibn abdullahi ابن عبد المطلب اسمه شيبة أي لغو مقعب عبد المطلب شيبة والده جري ابن هاشم اسمه عمرو ابن عبد المناف ابن عبد مناف اسمه المغيرة ابن قصي اسمه زيد ابن كلاب اسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ويان رسول كان صلى الله عليه وسلم أبتركيسة هذا شيخ وحوليه هو المتفق عليه وكان علماء يذكر راعين نسبك إلا لا يقارو عدنان علماء وحي يراهدين وصحيح عدنان كان إنه أولاد إسماعيل وقليو يضنوا يسكر عسيه لكن انت قد حيسا عدنان إسماعيل بعلماء كالدوضان ويراهدان هدي ما وحسو جنبا لكن لا يسكما حيسو نسبك رسولك صلى الله عليه وسلم إنه إسماعيل قليو رسولك إنه مركب تركيسا وسذا رسولك صلى الله عليه وسلم آيات القرآن بأمركو سودقي في سورة الشعراء الله جل وعلا وحير وأنذر عشيرتك الأقربين
nabi maxamedow waxaad u digtaa qaraabada kuu dhow. ma kuu joogay rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam. maka marka la joogana badanaa quraysh ama banu haashim waxay degganaayeen kacbaday inta ku hareeraysan bay degganaayeen. hadda waad aragteen guriga maktabadee la dhaho rasuulka ku dhashay sala allahu calayhi wasalam kacbada kama fogo, bannaankeedu ku yaalla waad aragteen, ee dhinaca baabusalaam ku yaalla. aayaddaa markay soo degtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam buurta wuxuu fuulay safa, ina asafa waalmarwa. buurtaasuu fuulay isagoo doonaya qaraabadiisa inuu u digo. buurtu way dheereed, laakiin hadda waa la jiray, waad aragteen, in yar baa ka soo haray. markaasuu ehelkiisiibuu u yeedhay, wuxuu ugu hormariyey yaa banii lu'ay, reer lu'ow, naftiinna naar ka badbaadiya. lu'ay marka laga tiriya rasuulka sal allahu alay wasalam nasabkiisa waa 8 ilaa 8 laga gaaro. maxamed ibnu cabdullaahi ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibni cabdimanaaf ibnu qusa ibnu qusay ibnu kilaab ibnu kacb ibnu lu'ay. sidaa awadeed waxay leeyihiin qofka inta laga gaaro abtirsinkiisa 8 waxay noqonayaan qaraabay noqonayaan. 8 qofka isu jirsataan, ilaan rasuulkeena waxaa la yidhi qaraabadaada u dig. qaraabadiina wuxuu ka bilaabay amarkii ilaah isagoo qaadanaya lu'ay buu ka bilaabay. markaa 8 qofka isu jirsataan ogaada waa qaraabaduu ka mid yahay, waa dadka la doonayo markaa in la xidhiidhiyo. rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam markaa nasabkiisii wakaa nasabka ugu wanaagsan buu ka dhashay. huwa khayru ahli اlardi nasaban cala aliطlaaq. dhulka guudkiisa waxa jooga waa kan ugu nasabka wanaagsan weeyaan. ilaan kulligood rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam nikaax buu ku dhashay. awowayaashiisoo dhan iyo kuwa sii dhalay nikaax saxiixa ayuu ku dhashay. safaax muusan ku dhalan rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam, saasuu sheegay. sidaa awadeed haddaa dadka cadowga rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam arrinkaa way u qori jireen inuu nasab fiican yahay. taana waxaa ku tusaya abu sufyaan intuusan islaamin baa wuxuu u tegey melik aruum, buu maalmaha ka mid a wafdi ahaan u aaday. quraysh baa u dirsatay iyagoo ka dacwoonaya rasuulka sal allahu calayhi wasalam. safar bay ahaayeen, wuu weydiiyey, wuxuu yidhi halkeed ka timaadeen? makan ka nimid. ninkan nebinimada sheeganaya yaa garanaya? dadkii waxay yidhaahdeen waxa noogu dhow ninkanay qaraaba yihiin abu sufyaan. abu sufyaan baa loo yeedhay, nin mutarjim ahna waa loo yeedhay, translator ah. waxaa la yidhi ninkan wuxuu sheegayo noo tarjum, ilaan ruum carabiga maynan garanaynin. rasuulka sal allahu calayhi wasalam baa la weydiiyey, waxaa la yidhi muxuu yahay ninkan sheeganaya inuu nebi yahay? abu sufyaan been muusan ku darin, wuxuu yidhi ninkaan nebiga sheeganaya waa ninka noogu nasab fiican buu yidhi, noogu wanaagsan. khiyaano ma yaqaanaa? khiyaano ma garanayo. ballanta ma ka baxaa? ballan kama baxo. marka dadkii cadowga ahaadaa baa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam nasab wanaagsan inuu leeyahay markaa u qiray. fa ashrafu alqawmi qawmuhu, dadka kuwa ugu sharafta badan buu ka dhashay. wa ashrafu alqabaa'il, qabiilkan ugu wanaagsan buu ka dhashay oo quraysh ah. wa ashraf alafkhaad, lafta ugu hoosaysa qabiilada waa tan ugu wanaagsan buu sidoo kale uu ka dhashay. jifida midda la dhahoo kale waa tan ugu wanaagsan buu rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ka dhashay. rasuulkana sal allahu calayhi wasalam isagoo tilmaamaya nasabkiisa siduu u wanaagsan yahay, xadiis saxiixa oo saxiix muslim uu soo saaray wuxuu yidhi in allaha istafaa kinaana min waladi ismaaciil. alle subxaanahu wa tacaala awlaaddii ismaaciil buu wuxuu ka doortay kinaana, nin lagu magacaabo oo qabiil ba ku abtirsan jiray. wastafaa min kinaanata quraysh, kinaanana wuxuu ka sii doortay qabiilka quraysh buu ka doortay. wastafaanii
واصطفى من كنانة قريش، واصطفى قريشا بني هاشم، بني هاشم الله سبحانه وتعالى قريشنا كسي دورتي، واصطفاني من بني هاشم، الله سبحانه وتعالى بني هاشم بو مركا يغسي دورتي بو يري. سيداسو رسولك صلى الله عليه وسلم نسب كيساها. هذا هو المتفق عليه، شيخ وحولي هذا كان هو المتفق عليه وكان لسكر راعي من نسبه عليه الصلاة والسلام، نسبك يا رسولك صلى الله عليه وسلم إلى عدنان لقاره. ولذلك قال رسولك وحو يري شيخه لا ترفعوني فوق عدنان، عدنان مركا لقاره كرها إيسي وذنا. حديثك علماء وحي ليهن صحيح معها شيخة تعليقات كسمي وحولي وان راديي مركامان هلين بوجري سنة كيسان هشام بن محمد ابن صائب الكلبي وهو متروك ننكاسا مركا كجرا. على كل حال انت لسكر رعسين هاي وإلى عدنان انت لقاقارو. وأمه رسولك صلى الله عليه وسلم هو يديه وحي أهيد آمنة بنت وهب بالغ مقعابي جري ابن عبد مناف، عبد مناف بامركا أووها ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة المذكورين كوا لصو شيغي بمركا نسب كيدنا وقليا. وهدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم iyo intay isaga soo dhacayaan, waxay isaga soo dhacayaan ibn kilaab bay isaga soo dhacayaan. ibn kilaab bay rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam isaga soo dhacayaan iyo hooyadii. wilaadatuhu wa nash'atuhu wa dhikru shay'in min akhbarihi qabla bi'thatihi. wilaadatuhu baabkan wuxuu u baab yahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisii, wa nash'atuhu iyo koritaankiisii, wa dhikru shay'in iyo shay in la sheego min akhbaarihi rasuulka sallallahu alayhi wasallam akhbaartiisii ka mada wararkiisii qabla bi'thatihi intaanan la soo saarin rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam muxuu ku sugnaa, muxuu ahaa, goormaa la dhalay, muxuu la kulmay ayuu baabkan ka sheekaynayaa. ولد رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وحل دلي يوم الاثنين مال اثنين أي الله دلي رسولك صلى الله عليه وسلم 12 مالنتي لبي تمانات من شهر ربيع الأول، بشهر ربيع الأول لقوم قعابه وبش صومالي ذا موليد كي تراهضه عام الفيلي سنة كي مروذيق لها لاقي مكة وصوقلي في شهر أبريل بيكو آدن تهبي يراهدين markay xisaabiyeen taariikhda shamsiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam maalintaas alla dhalay maalin isniina. axaadiithana way tilmaamayaan rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maalintaa wuxuu amray ama uu fadilay in la soomo, isagoo sooman baa la arkay. rasuulka allah sallallahu alayhi wasallam isniinta maxaad u soontaa? wuxuu yidhi waa maalintii markaa lay dhalay. qofkii doonaya markaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam inuu ku daysado ama jecel waxaa la doonayaa maalintaa soomkeeda inuu ku dadaalo. maalintaas alla dhalay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam. sanadkana waa caamul fiil oo sanad taariikhi ayuu ahaa. waa markii xabashadu ay ku soo duushay kacbada ninkii abaraha lagu magacaabi jiray ee sanca fadhiyay ka talin jiray baa maka weerar ku soo qaadayo maroodiyaal buu soo kaxaystay. allana jalla wacala waa kan qur-aanka ku tilmaamay inuu halaagay alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul. halaagaa la halaagayaba culummadu waxay leeyihiin waxay hor u dhac u ahayd rasuulka sal allahu calayh wasalam dhalashadiisa iyo qof nebi ah inuu quraysh ka soo bixi doono oo maka uu ka soo bixi doono. sanadkaasuu rasuulkeena sal allahu calayh wasalam dhashay. tuwufiya abuuhu aabbihii wuxuu geeriyooday rasuulka sal allahu calayhi wa aalihi wasalam ama wuu geeriyooday wa tarakahu wuxuu oga tagay fii batni ummihi
caloosha hooyadii isagoo ku jira ayuu aabihii geeriyooday rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam aabihii cabdullah ardacathu rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waxaa nuujisay xaliimatu bintu abi du'ayb almascuudiyah maamada lagu magacaabo xaliima iyo hooyada ayaa nuujisay ibnu abi du'ayb almascuudiyah culimada qaarkood waxay leeyihiin sidaan baranay waa asacadiyah reer bani sacad bay ahayd waa xaliima asacdiya ayaa nuujisay rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam watuwufiyat way geeriyootay ummuhu hooyadii waxaa la oofsaday wa huwa isagoo ibnu 4 siniina ah isagoo 4 sano jira ay hooyadii markaa geeriyootay rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam warabbaahu waxaa barbaariyey jadduhu awowgii cabdulmuطalib ahaa rasuulkeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatiimnimuu ku barbaaray aabihii wuxuu geeriyooday isagoo caloosha hooyadii ku jira hooyadiina 4 sano markuu gaaray ayuu geeriyooday sidaa darteed alle subxaanahu wa tacaala qur'aankuu kaga sheekeeyey wadduxaa walleyli idaa sajaa maa wadacaka rabbuka wamaa qalaa walalaakhiratu khayrun laka min aluulaa walasawfa yucطiika rabbuka fataddaa alam yajidka yatiima faaawaa wawajadaka daallan fahadaa wawajadaka caa'ilan faaghnaa miyaanan ku helin adigoo agoon ah faaawaa marka miyaanan ku dumin oo aanan ku raadin qofka faalad qaada wawajadaka daallan miyaanan ku helin adigoo markaa dariiqii aanan ku toosnayn oo aanan ku hanuunin wawajadaka caa'ilan alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku helay adigoon waxba haysanin fa aghnaa markaasuu qani kaa dhigay maadaama rajay aad ahayd iyo agoon fa ama alyatiima falaa taqhar qofka rajayga ama agoonka ah ha cayrinin hadduu kaalmo kuugu yimaado adiga waad soo martay kadaalika kunta wa ama saa'ila falaa tanhar qofka wax ku weydiisanayana sidoo kale ha karhin oo ha dhibsan ee wuxuu ku weydiisto sii waayo adigaba faqiir baad ahayd oo qani baan kaa dhignay wa ama binicmati rabbika faxadith nicmadii alle subxaanahu wa tacaala uu ku siiyeyna ka sheekee saddexna waa loogu mana sheegtay rasuulka sal allahu calayhi wasalam saddex la mid ahna waxaa la yidhi maadaama alle subxaanahu wa tacaala sidaa uu kugu nimceeyey saddexdaana qabo rasuulka sal allahu alayh wasalam markaa waa sidaa isagoo yar bay hooyadii geeriyootay awowgii cabdulmuطalib ayaa markaa soo koriyey warabbaahu waxaa barbaariyey jadduhu cabdulmuطalib falamaa balaga rasuulka sal allahu alayh wasalam markuu gaaray 8 acwaamin 8 sano markuu gaaray wa shahrayni iyo 2 bilood tuwufiya waxaa la oofsaday jadduhu awowgii baa la oofsaday masaa'ibta rasuulka sal allahu alayh wasalam siday isaga daba imaanayaan bal eeg ilan alle jalla wacalaa wuxuu rabaa inuu soo saaro shakhsiyad qof adag oo dhib kasta ka bixi kara oo waxa soo gaara u adkaysan kara ilaahay imtixaanadaas soo marinaya isagoo yar tuwufiya jadduhu fatawallaahu waxaa markaa la wareegay taladiisii iyo hayntiisii cammuhu adeerkii abu aalib ahaa abu aalib baa markaa rasuulkiina sal allahu alayhi wasalam 8 sano isagoo jira la wareegay siiradu way yar tahay sheekhu wuu soo gaagaabiyey laakiin waa siiro yar oo la fahmi karo oo qofku uu ogaan karo siiradii rasuulka oo dhan oo mukhtasara ah walamaa balaqa rasuulka sal allahu alayh wasalam markuu gaaray 12 caaman 12 sano saafara bihi cammuhu adeerkiibaa ula safray ila shaami dhulka shaam lagu magacaabo iyagu markaa xijaaz bay deganaayeen dhinaca shaam bay aadeen baytulmaqdis waa meelaha suuriya iyo falastiin iyo lubnaan iyo urdun iyo dhulkaasaa shaam lagu magacaabaa carabtuna ganacsi bay u aadi jirtay dad ilbaxnimadooda ee horrayso ay ahaayeen oo ganacsada fara'aahu fi ariiqi jidka waxaa ku arkay markaa raahibun nin suufiya ku arkay oo suufiyadii nasaarada ka mid ah ismuhu waxaa lagu magacaabi jiray
بحيرا أيا لديه جري فأخذ بيده قعنتي سو قبتي شريفة قعنت رسولك قبتي فقال وحيري هذا سيد العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين نعرف صفته في كتابنا ورأيت الأحجار والأشجار تسجد له ردوه لئلا تقتله اليهود بالشام فإنهم أعداؤه. هذا الكاسوير إنك رايبك قعنت انتو قبتي وحيري هذا سيد العالمين إلهي دتك أمي بقر كودي ويان يبعثه الله إلهي وصو صاريا رحمة للعالمين إساقو دتكو دن حريسوا وآيات القرآن كسيدة الماميسو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحريس بالله صوت الرسول كان صلى الله عليه وسلم نعرف صفته صفدي سانقرنينا في كتابنا كتاب كان نكو قرنينا إلا نين إنجيل يا توراة أخريوها صفة الرسول كان صلى الله عليه وسلم والله شيء ورأيت وحان أركي وكلويري الأحجار دكحانتي والأشجار قيده أو تسجد له رسولك صلى الله عليه وسلم السجود إيسا وسجود إكرام ويان ردوه عليا لئلا تقتله اليهود يهود سئينا أدلين يهودنا مركا بالشام شام بيجوجين فإنهم أعداؤه وعدوكي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم آخر كي دنبنا وادقرنا إيسان رسولك صلى الله عليه وسلم مالنتي خيبر نيف آريا وصميسان ناق يهودة أي سيسي بو آخر كي أود انت رسولك صلى الله عليه وسلم وكو مركا سنتي با مركا سكوسو كعجرتي ويري وان دريميا مالنتا وحان عني بان هدا دريميا مالمي قدام بي مدينة رسولك وكل من صلى الله عليه وسلم فرده وعليي عمه أديركي تلادي الراهب كو قاتي ويل كان يري مركا بركيسا أديرك أويهي سي آنا الله هلاقين الله دلين تلادي بو قاتيو فرده عمه أديركي وعليي وسافر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم مركلو صفري إلى الشام شام بو صفري مرة أخرى مركان كيك لو كقدسنا سفر كان تجار وأدي دون رسولك صلى الله عليه وسلم مع ميسرة نن ميسرة لقوم قعابو للسعودي وغلام خديجة أمنا خديجة رضي الله عنها باويلك اسكالا هيدو أدوم بوها خديجة بنت خويلد في تجارة لها قنعسي أي لاذا هي بمركها رسولك صلى الله عليه وسلم أدرتي قبل أن يتزوجها انتو سنقورسا رسولك صلى الله عليه وآله وسلم خديجة انتو سنقورسا بخديجة وحي أرقتي إنو أمية هي وحي لودي بوسن خيامي نين ضلية روية هي مركاسي تير هذا وحان ربا تجارة إن أدويل كان إلى قبته رسولك صلى الله عليه وسلم موسى دينه وكأقبلي معه ميسرة فرأى وأركي معه ميسرة نك ميسرة لقوم قعاب رسولك وحكو أركي عجائب كثيرة الرماء هادي أضويا بضنبكو أركي تي هرانا وحا أركي نكي الراهب كأها سفر كان دنبي الشام لآذينا نكان رسولك الله الصفري تجارة لا آذي باوحو أركي الرماء هادي أضويا بضن فحدث بها خديجة أشيغي فرغبت فيه خديجة مركاسي آد جعلات رسولك صلى الله عليه وسلم فتزوجها خديجة قرسدي وهو ابن 25 عاما يسوى شان لباتن سنة جرا بو خديجة مركا قرسدي سيد عادي قال له قرسدي أيو قرسدي أذيركد بو كدوني ريركي با سوفريستي وحيرا هذين نين قبر لو ديدو متهد قبرنا وكسينا يوم مركا ونكو قدرني رسولك صلى الله عليه وسلم سيدا سمركا خديجة لو قوري ولما بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم مركو قاري 30 عاما صد سنة مركو قاري هدمت قريش الكعبة قريش كعبة ذي دميين ليجردوها سي مركا النظيفيان قريش وحيرة هذين كعبة ذي وحان ربنا
inaan ka dhigno kacba nadiifa xoolo xalaala in lagu dhiso quraysh oo dhan baa fariisatay wasaradoodii iyo dadkii wax maamulayay waxay yiraahdeen waxaan rabnaa xoolo xalaala inaan kacbadii ku dhisno galino maal la soo dhacay ma rabno naag jirkeeda ka shaqaysatay ma rabno nin khamaar ciyaaray maalkiisa ma rabno nin kasta wixii xalaal uu haystay ha keeno beydkii ilaahay baan dhisaynaa waa iyagu mushrikiina baa sidaa gurigii u ilaalinaya fataxaazabu waxay ku dagaalameen markaa kacbadii way joojiyeen way dhiseen rasuulka sallallahu alayhi wasallam kacbada wuu la dhisay dhagax buu qaadayaa dhabarkuu saari cunug yarna wuu ahaa nin dhalin yar oo shaab ah hadda ka horna markaa wuu ka qayb qaatay fataxaazabuu waxay markaa ku dagaalameen cala alxajari alaswadi dhagaxa madow ayay ku dagaalameen qofkii qaadi lahaayoo meeshiisii gelin lahaa ilaan dhagaxan xajarul aswadka lagu magacaabo waxaa laga bilaabaa tawaafka waad aragteen jannada laga keenay asalkiisii isagoo aad iyo aad u cad rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam sidoo tilmaamay kulli nabiyullah ibraahim markuu kacbada dhisay ismaaciil buu alle subxaanahu wa tacaala keenay meeshaasaa la geliyey aad buu u caddaa barafka aad aragteen soo aad uma cadda barafkaasuu ka caddaa buu yidhi rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam sawadathu khataaya bani aadamkan taabanaya dembigoodii baa markaa madoobeeyey xajarkaas marka xajarka iyagana way tixgelin jireen kacbada sideedii bay u istaajiyeen afarteedii irid bay dhiseen afartii tiir bay ku istaajiyeen albaabkeedii bay kor u qaadeen sida hadda ay tahay dhagaxii markaa meeshiisii ciddii gelin lahayd fataxaazabuu cala alxajar alaswad kullu xisbin qof kasta wuxuu doonaya xisbi kasta yuriiduuna waxay doonayaan an yatawallow wadcahu inay iyagu saaraan fii mawdicihi meeshii la saari lahaa xajarul aswadka way ku dagaalameen oo kooxay ku noqdeen oo isku khilaafeen fawadacahu waxaa meeshiisii dhigay rasuulka sal allahu calayhi wasalam calayhi salaatu wasalaam rasuulkaa dhigay biyadihi gacantiisuu ku dhigay bacda an amarahum markuu amray kadib an yarfacuuhu inay dhagaxii soo qaadaan fii kisaa'in mare ay ku soo qaadaan ya'khudu kullu xisbin koox kasta waxay qabanaysaa minhum iyaga ka mid a biaxadi tarafayhi marada geesaheeday qabanaysaa faraduu raalli bay ku noqdeen bidalika واصطلحوا أرنكانا ويكهشيين وحيليهم قصدوا يجوا إسهيستا وكود قال من ربا أنا قلينينا دقحا أنا صارينا با رسولك صوغلي صلى الله عليه وسلم كعبدوا صوغلي كهر وحير هذين قفك أوجه الرئية صوغلا هن حكمه نما يوم كهشين وينين ساسي قوانكو قارين ولا سوغيا سوغلي دونا وحسوغلي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا الأمين والرلوغي بسوغلي يرهدينه هذا فدي نوميا اللي ساقانا كلا ساري مركزو تلظن في عن إلا رسول كان حريص بالله صدري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أخلاق في عن بالله صدري وحويري مرض دول كدقيسان دقحا والله ساري كدبنا قبيل كستا وحو قبانايا جيس مرضي كميدا إلا المرضو أفر جيس بيلادا تنوكالي سيدي بيكو هشيين رسولك صلى الله عليه وسلم مركا دقحي قبطي وميشي سيقلي أرنتان وحين نقطي أرن مركا اسكر راعين ويكو هشيين ذكر مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم رسولك سوساري تانكيسي أي أبابيه وشيء يشيء من أخباره ورركيسي كسابسا إلى أن توفي إلا رسولك صلى الله عليه وسلم لقى أفصده باب كان مركاو بدنيه انتا صدنبو مركا كشكين دونا طيب ولما بلغ رسولك صلى الله عليه وسلم مركو قاري 40 عاما كعبضة مركا لسي سدن جربوها أفرتن مركو قاري بعثه الله اللو صاري بشيرا ونذيرا إنه نقض مدتك بشارية
oo qofkii ilaahay raaca janno ugu bishaareeya wanadiiran dadkana u diga qofkii dariiqa alle aanan qabsan inuu markaa naar gelayo. ibn اlqayim aljawsiya wuxuu leeyahay 40 sano waa sinu lkamaal walaha tubcaثu alrusul. 40 sano waa kaamilnimada, waxa weeyaan sanadka kaamilkiisa weeyaan iyo da'da kaamilnimadeeda. nebiyadana 40 sano ayaa lagu soo saari jiray. sida aawadeed qofka 40 sano markuu gaaro wax u dhiman male. 40 haddaad gaarto caqli kuu dambeeya ha sugin, waa lagu kamil yeelay. xoog ha sugin, waa kuu kaamil. waxoo dhan way sii yaraanayaan wixii ka dambeeya. haddii zamankaana waad aragteenbo dadka magaalooyinka jooga takhaatiirtii markaad u tagtaan meeqaad jirtaa 40 sokor iska ilaali, dhiig kar iska ilaali ku leeyahay. magaalo soo ma joogtid ha is ilaali, halis baad u tahay. marka rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam 40 markuu gaaray buu Allah subhanahu wa ta'ala soo saaray. ilaahayna quraanku ku tilmaamay hatta idha balagha shudda wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimin. qofka 40 markuu gaaro ilaahay inuu noqdo la raba. qala rabbi awzi'ni an ashkura, ilaahay inaad ka barido inuu nicmooyinka uu ku siiyo uu ku ziyaadiyo. waalidkaaga inaad u ducayso, adigaa waalid noqday oo 40 gaaray, xusuuso waalidkaagii. awlaadiisu u ducaynaya qofka 40 markuu gaaro, wa aslix li fi dhurriyyati. ilan waad sii socotaayo da'daada way sii weynaanaysaa, maamulkaagii wuu sii yaraanayaa. waxaa la doonaya in lagaala wareego awlaadii markaad inaad aslix li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni min almuslimiin. ahlu madiina sidoo kale madiinat rasuul dadkii joogay 40 sano markay gaaraan kaanuu yalzimuuna almasjid, waxay u bandaan jireen masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam. 40 markay gaaraan waxoo dhan way iska soo xiri jireen. maantana haddii waad aragteen adduunyaba waxay noo furmaysaabo marka 40 la gaaro. ayib faataahu jibriil baa u yimid بالرسالة دينته أولي يمد يا رسالتي وهو في غار حراء إسقو قدكا كجرا قدكا سو إلهي كعابود جري ماشو تقي جري وخالي كنا قن جري وكفكري جري رسول كينا صلى الله عليه وسلم آياتها الله سبحانه وتعالى هي معجزاتك خلق يسو كفكري جري. جبريل باو يمد فقال له حكيري اقرأ باسم ربك، اقرأ أخري باسم ربك، ربي قام مقعيس أخري إلى قوله لقاقاره علم الإنسان ما لم يعلم. لقاقاره قصة واد قارنا إنسان رسول كينا صلى الله عليه وسلم مركو جبريل لها الدوحويري ما أنا بقارين وحبا ما أخرج يجري وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وهو معجزة هذا رسولك يسوقهم وحبا آخرين وحبا نقورين قرآنك إن لقو صوت الجيو كدم جبريل وكان قبطي ويري مركا أخري كدم الرسول كان صلى الله عليه وسلم وأخري. وهي أول ما نزل عليه وآيات أقوه الرئيس يا رسولك صلى الله عليه وسلم كسود دكتا يوم الاثنين مالين سنين باي هيد مالين توحي لقو صوت الجيو 8 من ربيع الأول مالين تسيدي ذا بشهر ربيع الأول. وقيل وحليري غيره مالنتا مالنك قد السنة علماء ويشيغان. على كل حال رسول كان صلى الله عليه وسلم وحي أقهر الوسو دجيو وحي أهيد اقرأ باسم ربك الذي خلق. سيدا أوذت علماء وحي رهدان دين تان إسلام قردان علمي بيكون السنتهي وحي أقهر يوسو دجي ما دام اقرأ ويه إن علمك اللبرتو أو قرالك اللبرتو أو أخرينت اللبرتو oo la badiyo sidoo kale qofka wax akhriya iyo kan aan waxba akhrin waxa marka thaqaafo badan oo cilmi badan qofka wax akhriya marka diinteena dhan cilmigaasi ku dhisantay. fa aamana bihi rasuulkeena wuu rumeeyey man aamana qof rumeeyey wa kafara bihi wana ku kufriyey man kafara qofkii kufriyeyna marka kadib wuu ku kufriyey oo dadkii marka way kala baxeen fariiqun fil janna وفريق في السعير كوا مركا رسولك الرميي أو راعي يكوا ديدي بين نقدين أو يرهدا وشاعر وصاحر
وكذاب وأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ووحيابه الرئيس كسو قرقرتي هبين يمالنا والو ميريا وحساسي يرهدين دادكي كفريين يا رمي مركا أوغوه الرئي رسولك صلى الله عليه وسلم نصيبك يا هلي فأول من آمن به قفك أوغوه الرئي رسولك الرمية من النساء حق هوينك خديجة بنت خويلد هو يضع أي أهيد أمنا خديجة وأزواجه أمهاتهم رسولك صلى الله عليه وسلم حاسس كيسي أنه هو ينويهين بنص القرآن خديجة أبوه الرئيسي حق هوينك وحرمية ومن الصبيان لنا عرورتنا علي بن أبي طالب يا أبوه الرئيس رضي الله عنه ومن الرجال رقووين قفوين ورسولك الرمية أبو بكر الصديق بأبوه الرئيس رضي الله عنه شيخ المهاجرين والأنصار ومن الموالي موالدين وحا أبوه الرئيس وأضومدي زيد بن حارثة أي أبوه الرئيس دادكا سامركا دادكي أبوه الرئيس إسلامك قابلي رسولك صلى الله عليه وسلم أخلاق ديسا يحق أوته طبيعة ديسا مركي أركان دادكا سارنبي دادكا أقولوا بي أهايان خديجة حاسكيسي أهايد علي المادير بي أهايان أبو بكر صاحب كيسو أها زيدنا هدوات قرانيسا انت أنا لديدين إن ما أركت تبنيقا وحو أهاويل كيسو كالو أها ها زيد مركا دادكاس أقوه الرئيي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دادكي أقوه الرئيي مركا الرمية وحصره عليه الصلاة والسلام أهل مكة دينتي بهذا فافيسا عرب يا قريش يا ددكي مكة دقنا وحسو قاري رسولك صلى الله عليه وسلم دعوة ديسي ينو إسلامكي ليمد وددكا وقدقيو شركي أصنامتان مكة دحيالا يا كعبذا كبوحا إنو وقدقيو عربتو مين قرنينين نمبا بحي وشام تقي وحن صوروري ها أخي بني خزاعة أن لقوا مقعابو با انتو مكة تقي أني راهضو شام انتو تقي بوحو أركي نصارى دي وحن عابدي أسنام مركاسو سوقاتي وكيني سيدا أولا نكاسو سنم عابدا قداشي وحويان وحالا قسينا يا ذنبي بوك حنباريا وحصره عليه الصلاة والسلام أهل مكة في الشعب شعب كي بمركا كهريريا مركا دينتي مقلين برسولك صلى الله عليه وسلم سوق تقين شعبك وحي ليهن وواحد وشعاب مكة وهي الوهاد والطرقات بين الجبال والمراد وميلها بورها ودحيا شعبك لغو مقعابا وقوشا لو بور دحدودا ميلا أي مركا كو أروريين وقدومين بيكو سميين طيب 3 أعوام 6 سنة بيقودوميين مركي مقلين رسول بصوبحي oo ilaahyadii ceebaynaya oo sheegay inayna waxba taraynin waxay yiraahdeen inka aan sugu tagno yaana waxba la siinin yaanan waxba laga gadanin dadka yaanan lala hadlin go'aan bay gaareen 3 أعوام أو أقل أما wax ka yar bay go'doomiyeen shacabka marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam qoomkiisa ay ku jireen طيب فخرج منه رسولك صلى الله عليه وسلم شعبكي قشي وكسو بحي هو وأهل بيته إساقي أهل كيسة وعمره إساقو دأذي سؤيتهي 49 عاما أفرطا يسقال سنة طيب كفار قريش بالفير دبكي رسولك صلى الله عليه وسلم أقيستين أولا هرتو حيسكو ديان إني الدلان محايا لي المهي بو نقفة هذه هوينكي بو نقفة هذه وإنا مركا نكان أن مكا كسرنا أما وإنا دلنا أما وإنا حصار أن كسمينا امبارغو قدومين إن لغو سميو وحو سوقليا يوحك بحيا إنا اللي هلين رسولك صلى الله عليه وسلم مركا
isagii ahalkiisa meeshaas isaga xaroodeen intaasay ku jireen oo alle subxaanahu wa tacaala ay caabudayeen oo ay baryayeen وفي عام 50 من عمره رسولكنا صلى الله عليه وسلم كنتم سنة مركو قاري مات عمه أذيركي أيا دنتي أبو طالب وماتت وحادمتي زوجته حاسكيسة خديجة أهيد بعد عمه أذيركي كذب ب3 أيام 6 مال موت كذب عام كواكيل لقوم قعابي جري عام الحزن. طيب رسولكنا صلى الله عليه وسلم dhibaatadaasaa markaa u timid oo qadarkii eebbe ah rasuulkeena sal allahu alayh wasalam hoos markaad fiiriso shacabka intuu ku jiray iyo sababta uu u galay hoos halkaa markaan ugu noqonno wuxuu leeyahay sheekhu ثuma ina kufaara qurayshin ajmacuu amrahum waاttafaqa ra'yuhum calaa qatli rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam inay rasuulka dilaan waqaaluu qad afsada abnaa'ana wa nisaa'ana ilmihii iyo awlaaddii buu naga fasahaadiyey faqaaluu liqowmihi khuduu mina diyatan mudaacafa diya naga qaata wayaqtuluhu rajulu min gayri qurayshin waxaa dilaya qof quraysh aan ka mid ahayn baa dilaya diya oo mudaacafa ahna naga qaata diya la lalaabay waturuuxuuna anfusakum annagana waad nooga raaxaynaysaan isagana markaa waad u raaxaynaysaan faabaa qowmu banuu haashim banu haashim way diideen rasuulka ehelkiisii min dalika arrinkaa fadaaharahum banu lmuطalib ibnu cabdilmanaaf markaa waxaa sidoo kale banu haashim waxaa markaa u gargaaray banu lmuطalib baa u gargaaray arrinkaa ku raacay faajmaca almushrikuuna mushrikiintii waxay isku raaceen oo min quraysha calaa munaabidatihim inay markaa tuuraan wa ikhraajihim min maka inay ka saaraan ila ashicbi meeshaa gosha inay geliyaan falamaa dakhaluu ashicba markay galeen amara rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulka alle wuxuu amray man kaana bimaka min almu'miniina qof kastoo alle rumeeyey oo maka joogay an yakhrujuu ilaa ardi alxabasha xabasha inay aadaan wixii mu'miniina wuxuu yidhi maka isaga taga maadaama lasugu keen tegey maka waxaa jooga malik oo laa yudlam cindah axad qof agtiisa aan lagu dulminin najaashaa joogay wadakhala banu haashim wa banu lmuطalib waxay galeen shicbahum bay galeen meeshii goshay iska galeen buurtii hoosteeda mu'minuhum wa kaafiruhum bal fiiri rasuulkeena sal alla siduu ilaahay ugu gargaaraya xamiyada haddaa mar bay fiican tahay iyo qabiilka banu haashim iyo banu lmuطalib kuwoodii rasuulka rumeeyey iyo kuwii aan rumayninba rasuulka meeshay la galeen falmu'minu diinan qofkii mu'minka muxuu shicibka u galay diin darteed waalkaafiru xamiyatan dhiig iyo markaa wuxuu u galay kaalmayn uu qabiilka ugu kaalmayn rasuulka sal allahu alayh wasalam kuwii kufaarta ahaan xamiyo falamaa carafat qurayshun ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam qad manacahu qowmuhu quraysh markay aragtay in nebi moxamed la difaacayo oo qoomkiisa ay difaacayaan ajmacuu calaa an laa yubaayicuuhum walaa yadkhuluu ilayhim shayئan min alrifqi waqaطacuu canhum alaswaaq markay sidaa arkeen suuqii iyo badeecadii dhan bay u diideen markaa banu lmuطalib iyo banu haashim walam yatrukuu طacaaman walaa idaaman walaa baycan ilaa baadaruu ilayhi washtarawhum duunahum markay arkaanbo dadkaa meeshay ku jiraan banu muطalib iyo banu haashim iyo rasuulka markay arkaan dad u socda oo raba inay wax u geeyaan iyagii baa ka iibsanaya lacag badan bay kaga iibsanayaan subxaana allah waa muqaataca caama weeyaan sidoo kale waxay go'aan ku gaareen walaa yunaakixuuhum inaynan ka guursalin walaa yaqbaluu minhum sulxan abada iyana heshiis la gelin walaa ta'khudhum bihim ra'fa inaynan u naxariisan wax kastoo ku dhaca xataa yusallimuu rasuula allahi sal allahu alayh wasalam lilqatli ilaa rasuulka ay u soo dhiibaan si loo dilo maxaa yeelay ilmihii iyo haweenkii iyo dadkii oo dhan buu naga lumay bay leeyihiin laakiin muusan lumine rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuu hanuuniyey oo xaqii buu tisay wa katabuu bidalika arrinkaa waxay ku qoreen saxiifatan warqad bay ku qoreen
وعلقوها في الكعبة كعبة ذي سورين الرمها صودن وقوان لسوقاري شربي سوي مادين انتي كله بنو المطلب يا بنو هاشم قوان كاسي سوقارين ومركا لما دافانكا وتمادوا على العمل بما فيها من ذلك 3 سنين 6 سنة أي أرمكا مركا دائمين فاشتد البلاء على بني هاشم في شعبهم وعلى كل من معهم لبكاسي مركا الله كل من رسول كان صلى الله عليه وسلم انتو ميشا كجري. وفي عام 50 من عمره رسول كان صلى الله عليه وسلم كنتم مركو قارينا مات عمه أبو طالب وإلى لنجري وكالدفاع جري نمك مشركين تاء وماتت زوجته حاسكي سينا ويدمتي وقرقاري جرتي دب مركو كسو دعو أو آد أصو فكرو دجين جرتي ودهي جرتي إنك لا تصل الرحم وتنصر على نوائب الحق وتكسب المعدوم إلهكم هو جني أديقه ويدجين جرتي مركا ويلا تلين جرتي وحيدي جرت معايا لأديقه دبكو مرة عايه اسكا سمر waayo qofkan waxa aysan waxbaad siistaa qofka la dulmiyo oo u gargaartaa xaqaad raacda iyadina way geeriyootay بعد عمه ب3 أيام فلما بلغ 51 عاما كنت يكون مركو قاري و9 أشهر إيوه 9 بلود مركو قاري أسري به رسول كان صلى الله عليه وسلم ولد المي بين زمزم والمقام زمزم زمكا عيلك زمزمكا هي مقامك مقام إبراهيم انت ود حيسا أي دقنايين مركا قريق وحوجي في أمي هاني أيوجي في ماشا سالقا دلمي وادرتين قفكي تجي أما 18 سنة كهر أما 9 سنة كهر عيلك ولا قلي جري هدا مركي هوري هدا تكتين كعبدا مقامك مركو سيدان يهي وكدن بي زمزم كان وكدن بي ومركا طوافك لما يسوى لقلي جري هوس بالو قلي جري عيالك الله سو أركي هوس بالو سو عبي جري لكن هذا ويحرين واجه أنا ماشي حساب لدقنا أبو طوافك ماشي بناك على لدقنا قرياكو يالي مركا رسول كان الصلاة سقوا ماشي جيفا قري ودحيا زمزم كي مقامك أي لدى المية إلى بيت المقدس بالو المية وعرج به رسول كان صلى الله عليه وسلم وحال صاري على البراق براق بالله صاري وشيء مركا فرس كان كيروين ويان إلى السماء وفرضت وحال فرض يالي مركا لدى المية الصلوات الخمس 5 صلوات وعبادات كبار رسول كان صلى الله عليه وآله وسلم لقو فرض يالي دبكاس وكسو بحي شعبكي وكسو بحين دبا يميدو أديركيسي ودفاع جريبا جيريودي خديجة دعوة أوكا المين جرتي باقيريوتي الله سبحانه وتعالى مركا وحدون يا رسولك إن لا صبرسيو والله قاضي والله ديلمي صلاته بالغو فرض يالي صلاته واتقران إيسان وحي أهايان كنتن أنبيو صوم مري نبي الله موسى بالله الله يؤاد وقلنا سيحيي أو يري إلهي كن نقو أنوغو بني إسرائيل بان دحجوغي إن بدنا وان الله الله وان كروايي ومدادا يبنو إسرائيلنا ومدادا كضعيف سن مقادي كرت إلهي النقو فاسأل عنه التخفيف إنو إلهي مركا كايا ريو صلاة كنتم كا إلهي ويديسو وكان شنك صودق إلهي مركا وحبالا قدمي وحبالا قدمي وحبالا قدمي كدب شنتي هدا نبي الله موسى نقوكو يري وديدي وحي راجعت ربي حتى استحييت منه إلهي وان كنا النقض إلا مركي دما كحشوضه مركا صلاة رسول كنا صلى الله عليه وسلم صلاة مركا مقام كذا تقرن كرتا ماشا لغو صفر ديله رسولك والد ديلمي مكة لغا قاضي مكة إيا شام بيت المقدس انتهي السجران آد بي وكلا فوقيه كدبنا سماوات كالو ديلمي كدبا صلاة دي لغو صفر ديالي مركا صلاة مهمة وين بين نوليده قفك مسلم كا وحلا دوني صلاة شنطة إنو إلاليو هذا شنطة صلاة توكاتو سفيعا وحال لم يتهيقف كنتم صلاة توكادي أجر كيبا لغو سينا يا رسول كينا صلى الله عليه وسلم بات المامي ولما بلغ رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم مركو قاري 53 عاما كنتن يسدح سنو هاجر وهجرودي
من مكة مكو كتغيو للمدينة مني آذي في الليلة التي اتفق فيها هبينك اسكر راعين دحد يذو بحي أهل مكة اسكر راعين على قتله إن رسولك الدلان إلهي بقرآنك كغشيكي قريش وحي اسكر راعين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يخرجوك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك إن يكو حران أما يكو دلان أما يكو سهران سدحاس يكو أنكو قاري عير هذين أن حرنو قبلنا ميل أنكو حرنو إلا أمركا وكجيريودو أما أن دلنا أما أن مركا كسارنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هبينك صبح مركا رسولك صلى الله عليه وسلم فعصمه الله منهم الله سبحانه وتعالى وكبد باذيي ورفيقه وحل السعودي ورفيقي ساها لقلي هجردا أبو بكر الصديق بالقلي فاختفيا وحيسكو قريين في الغار قدكي بيقلين 3 ليال 6 حبين بيكو جرين قدكا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وادقران إيسان الله جل وعلا با كهد لي حالة يكو سقنايين إنو خوف يعبسي مركا جرتي أو بكر رسولك صلى الله عليه وسلم وكي رسولك الله ونمن كان وإن أركيان رسولك صلى الله عليه وسلم ولي لا تحزن إن الله معنا إلهي بانا لجري مركا أبو بكر همرقين طيب فدخل المدينة مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم وحو قلي يوم الاثنين مال خميسة فأقام بها رسولك صلى الله عليه وسلم مدينة وحو جوغي 10 سنين 10 سنة ما كان ميقو جوغي 16 سنة أيو توحيد كوذي مدينة وحو جوغي 10 سنة 26 سنة أيو رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دعوة وذي وتوفي صلى الله عليه وآله وسلم رسولك الله والله أفصدي يوم الاثنين مالين سنين بالله أفصدي 12 لبي طبنكي من شهر ربيع الأول بشهر ربيع بالله أفصدي مالنتي لبي طبنك أهيد في وقت الضحى مالين برقاء أي الله أفصدي صبح دي برق النمضي في شهر فبراير بشا فبراير بي أهيد مركا شمسية لغا تريو وعمره رسولك صلى الله عليه وآله وسلم دأدي سوحي أهيد 63 عاما 6 سنة وعمر الغالب كدتك انتي قاران بدنا و6 7 انت ودحيسا بي امدان وبدن تهي قف كسي بتا او عمريgiisa uu sii dheeraado marka wayartay intaas ay dadku u badan yihiin وعمره 63 عاما ودفن رسولك صلى الله عليه وآله وسلم وحل آسي ليلة الأربعاء هبينك 4 ay soo galaysay في بيت زوجته زوجديسا غريغيدي با لغو آسي وأمنا عائشة غريغيدي ومركا مساجدك رسولك صلى الله عليه وسلم كدغنا مسجدك iyo guriga way kala go'sanaayeen masjidka markuu weynaaday banu umayya waqtiga ay haysteen bay markaa masjidka soo galiyeen oo ay waasiciyeen oo dhaxgaliyeen maahay markii hore wuu ka go'naa sidaas markaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam halka loogu aasay طيب وفيه توفي بعد مرضه 14 يوما وفيه قرقا سانا رسولك صلى الله عليه وسلم توفي وكو جيريودي قرقا لغو آسي عائشة يكو جيريودي سيدا تاريخ دو شيغا يعني محاديثة الماميان رسولك صلى الله عليه وسلم مركو جيريودي والاسكو قبصة ميشا لغو آسي لها كدبا مركا صحابة وحي قاركود وريين أما أي شيغين إن أنبياء ميشا يكو دينتان لغو آسو وانا لقادين سيدا سار رسولك صلى الله عليه وسلم قرية لغو آسي وفيه توفي ماشا صلغو أفصدي بعد مرضه جردي سكدب 14 يوما أفريتهم بري كدب ماشا سوكو حنون سنة ولغو آسي رسول كان صلى الله عليه وسلم وفي بعد هذه التواريخ تاريخ ذا لكن قاركيد خلاف
khilaaf baa ku sugan macnaa waqtigaas iyo maalinta waqtiga ay ahayd iyo waqtiga la aasay lam nadkurhu maanan sheegin buu yidhi laga yaaba culamada qaarkood inay waxyaabo kale sheegaan waa taariikhda ku saabsan inay ahayd maalinta 12-ka maalintu inay ahayd markaa maalin isniina taariikhdu ay ahayd 12-kii shahr rabiic alawal waxaasoo dhan wuxuu yidhi sheekhu qaarkood khilaaf baa ku jira lam nadkurhu aanan markaa sheegin annagoo ka cabsanayna inuu kitaabka nala dheeraado wa kaanat ghazawaatuhu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam duulaamadii uu ka qayb galay ama uu diray 27 ghazwa 27 ghazwo ayay ahaayeen waqaca alqitaalu dagaalka wuxuu dhexdooda dhacay fii 9 minha 9 ka mid ah wa amaa bucuuhuhu dadkii uu diray guddiyadii wasaraaya iyo ilaaladii uu diri jiray inay wax soo ilaaliyaan 50 ayay ahaayeen laakiin ghazawaadka saxaabadu ay gaalada la dagaalameen iyo mushrikiinta waxay ahaayeen 27 ghazwa 27 ghazwo waqaca alqitaalu fii 9 minha 9 ka mid ah طيب قاتل منها في 9 رسولكنا صلى الله عليه وسلم هو مركات فيرسو معنى رسولكنا صلى الله عليه وسلم 9 ka mid ah ayuu markaa ka qayb galay dagaalkooda sheekha sidaas uu leeyahay hoos hadaad eegtaan waqaca alqitaalu fi 9 minha ay qaatala rasuulu sal allahu alayhi wasalam fi hada alqitaal 9 minha badr wa uxud والمريسيع والخندق وغريضة وخيبر والفتح وحنين والطائف وقد قيل وحكى له ليري إنه قاتل في بني النضيرنا رسول كان صلى الله عليه وسلم وكقيب قلي وفي غزاة وادي القرى وفي الغابة وكقيب قلي ددبا مركا سوقوري أهل السير والغزوات لكن شيخه حليه هي وكانت غزواته 27 غزوة وقع القتال في 9 منها رسول كان صلى الله عليه وسلم isagoo la socdo wuxuu dagaal dhacay 9 ka mid ah wa amma bu'uuthuhu dadka uu bixin jiray oo diri jiray wasaraaya ilaalada 50 ay ahaayeen ilaalada marka iyagu dagaal maynan gali jirin waxbay soo ogaan jireen oo soo fiirin jireen wax iska qabsada mooyee wa hajja rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu xajiyay qabla farad alhajj hajka intaana la farad yeelin maratayn laba jeer wa ba'da alfarad markii la farad yeelayna maratan hal mar buu xajiyay rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waa xajkiisii ugu dambeeyay 110 baa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam la socotay oo saxaabo ah xajkiisa ugu dambeeyay wahiya xajjatul widaa xajkiisa gootinta weeyaan madiino ka soo baxay waa la iclaamiyay dad badan baa markaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam soo raacay wa'tamara rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu umraystay halkaana uu xajiyay واعتمر وحو عمريستي 4 مرات أفرجير كلها عمروينك وحي أهايين في ذي القعدة بش ذي القعدة لقو مقعابو برسول كان صلى الله عليه وسلم عمريستي بلها سو عمريستي وحجك بش كهو ذي القعدة كهو الرئيسة ذي الحجة كهو الرئيسة ويان رسول كان صلى الله عليه وسلم لكن بلها وفي عان الله عمريستو uu sheegay waxa kamid ah qowlkiisa bisha ramadaan haweeney baa u timid oo tiri rasuulka allah waxaan rabay inaan kula xajiyo xajkaagiina uu i dhaafay inaan kula xajiyo ima suura galin ee maxaan sameeyaa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri bisha ramadaan umrayso al-umratu fi ramadaan ka hajjatin ma'i waxay la mid tahay adigoo ila xajiyay bisha marka ramadaan umrayso marka way fiican tahay bisha qofkii heli kara inuu umraysto darsigeennina labaad inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa wa sallallahu sallama ala nabiyyina muhammad wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh